komishanka xuquuqul insaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa tababar 4 cisho socday u soo xidhay saraakiil ka tirsan ciidanka bileyska Soomaaliland kuwaasoo la barayay arrimaha xuquuqda aadamaha sidoo kale wada shaqaynta bulshada iyo bileyska jamhuuriyadda Soomaaliland. barnaamijkan ujeedadiisu ahayd sidii la isugu xidhi lahaa bulshada iyo bileyska isla markaana loo walaalayn lahaa bileysku ay noqon lahayd saaxiibka dadweynaha ayaa waxaa bixinayay khubaro ku xeel dheer aqoontaas iyadoo barnaamijkan ay isku dubarideen isla markaana ay fulinayeen hay'adda xuquuqul insaanka qaranka oo kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin. munaasabadii xidhitaanka tababarkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xuquuqul insaanka qaranka agaasimaha guud komishanka xuquuqul insaanka qaranka hoggaanka tababarada ciidanka booliska saraakiil ka socota hay'adaha wada shaqaynta ay leeyihiin xuquuqul insaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. wareenkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha fulinta ee komishanka xuquuqul insaanka Cabdi Samed waxaanu ka warbixiyay dowladda xidhitaanka tababarkani. saraakiisha la tababarayay runtii waxay muujiyeen aqoon khibrad iyo hawlkarnimo runtii waxaan sidoo kale aad ugu bogaadinayaa ilaalinta waqtiga ismaamulka iyo kala dambeynta quruxda badan ee ka muuqatay muddada 4 cishood ahaa ee aanu halkan wada joognay saraakiisha ciidanka bileyska ee halkan lagu tababarayay tababarkeenani waxaynu ku qaadanay aynu isla qaadanay muddada 4 maalmood ahayd sidii aynu hadhow ciidamada gobolada ugu tababari lahayn guud ahaan arrimaha xuquuqda aadamaha iyo ilaalintooda iyo doorka uu ku leeyahay ciidanka bileysku isxasuusintiisa. waxaan runtii iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adaha UNDP iyo UNSUM oo iyaguna nagala qayb galay oo runtii iyaguna ka qayb ahaa macallimiintii iyaguna casharada bixinayay. intaas kadib mas'uuliyiintii kala duwaneyd ee halkaasi ka hadashay isugu jiray saraakiishii bileyska ee tababarka qaadanayay sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha kala duwan ee wada shaqaynta leeyahay komishanka xuquuqul insaanka iyo sidoo kale macallimiintii tababarkaasi bixinayay ayaa ka warramay ahamiyadda tababarkan uu leeyahay. tababarkii muddada 4 cisho ahaa halka nooga socday oo maanta noo soo gabagaboobay iyo casharadii aanu ku qaadanaynayba waxay haayeen dhammaantood qaar muhiim u ah shaqada ciidanka booliska iyo habsami u socodkeeda sidoo kale in ciidanku uu noqdo ciidan lagu kalsoon yahay attitude ahaan akhlaaq ahaan aqoon ahaan iyo profession ahaanba aad baan uga mahad celinaynaa komishanka xuquuqul insaanka iyo macallimiintii 4 maalmood halkan tababarka nagu siinayay. waxaa tababar loo soo xidhayaa 3 tababar oo kala duwan oo ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waa tababarkiinan oo kan TOT-ga mid xalinta mid ah xagga hubka xakamaynta hubka iyo tababar kale oo human right-ka ah oo jaamacadda Hargeysa qabanaysay oo konton sarkaal ay ka qayb galayeen. taasi waxayna tusaysaa horukaca iyo horumarka uu ku talaabsaday ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland in laga dhiso xaqa xuquuqul insaanka iyo community policing labadaba. dhowrkii cishe aan halkan uga soo qayb galay inaan marqaatiyo marag uga ahaado hannaanka ugu soconayo tababarku waxaan aad ugu mahadnaqayaa saraakiishii ka socotay ciidanka bileyska 14 sannadood baan macallin jaamacadeed ahaa weli ma arag dad ka dhishbilaysan oo ka nidaamsan oo tababar qaata ciidanka halkan lagu tababaray waa guul soo hoyatay. Really happy to be here, a part of this training. This is a TOT training. I'm really honored to be able to stand in front of you and give some information. UNSOM and UNDP has a strategical place, and we have to give a strategical advice to police. As a police, I'm honored to be here and to be able to share our information, our knowledge together. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tababarkan isla markaana aan hortiina imaado aniga oo waxa weeye matalaya UNSOM iyo UNDP. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan waxa weeye booliska anagoo aan UNDP iyo UNSOM ba ah inaan waxa weeye tababarada caynkana aan wax booliskan aanu siino isla markaana waxa weeye sii socon doonaan. hoggaanka tababarada ciidanka booliska Cabdi Axmed Tiir iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka Maxamed Baaruud. waxaa ii farxada mar labaad trainingkii halkan aynu ku furray maanta inaynu soo xidhayno training kaasoo ahaa muhiimad badan
u lahaa ciidanka booliiska iyo bulshada. halkan waxaa ku barateen inaad macallinnimo ku gudbisaan wixii aad barateen idinkoo macallimiin ah oo ka kala socda gobollada dalka oo dhan inaad ku gudbisaan wixii aad barateen booliiskana gaadhsiisaan ayaa ku barateen. dhalinyartan tababarka qaadanaysa ee macallinimada loo tababarayo oo ay ka muuqatay siday u imanayeen iyo siday u dhagaysanayeen iyo siday uga qayb qaadanayeen tababarkaba inay horta arday wanaagsan yihiin. waxaan rajeynayaa inay macallimiin wanaagsan noqon doonaan insha Allah. haddii aan la yidhaahdo tababarada waynu sii wadi doonaa, gobolladaynu ka wadi doonaa, Hargeysa waynu ka wadi doonaa. waxaan rajeynayaa wada shaqaynteenu oo imika ay ka muuqato inaynu si wanaagsan halkan uga wada shaqaynay inaynu sii wadi doono, annaguna aan ku soo dadaallo inaan macallimiinteena horta aad baan ugu mahadnaqayaa iyagu ka qayb qaatay tababarkan. marka waa mahadsantihiin sidaa u dadaalaysa baan annaguna idinla dadaalina haddii aan la yidhaahdo. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey saraakiishii bilayska ka qayb qaadanayay tababarkaasi ku saabsanaa ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo sidii ay communitiga ama booliska iyo bulshadu u wada shaqayn lahayd.